waqooyi bari TV. mukhtaar garad cali baraale ayaa ka hadlay halka ay marayso heshiisiinta labada beelood. garaadku waxa uu ii sheegay inay maalmahan ku sugnaayeen magaalooyinka Ceegaag iyo Hurufadhi isla markaana labada dhinac ay la kulmeen. garaadku waxa uu sheegay inay sameeyeen gud ka kooban 33 xubnood oo ah ergooyinka iyagu madasha soo gaaray iyo waliba kuwii hore ugu sugnaa. Alxaym sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. على وكسلام يا أديك أنت مقلة الساعة ما يدقيسنا ميلاد شوكتان بوحد كسلام يا سلامة إسلامك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب ورون وبريهم بوحد كتشنا يهاول نبضات يرجف ربضان وحقا إلا استعانات أن سجنمد إلا يبدأ هوله الحمد لله ميل وعملنا مريان لبدي بلاد الشقاقات وكل حد عليه الشيطان كل حشقينا إن شاء الله سفي عمل وقف صومان labada geesba waa lagu soo dhaweeyay si walaalnimo leh oo tolnimo leh oo islaamnimo ah oo kalgacal ka muuqda ay labada geesba lagu soo dhaweeyay inta insha Allah hadana waxaan Ilaah ka baryayaa inuu si yar fudud oo khayr qabtay Ilaahay loogu soo dhameeyo hawshii xagga ergooyinka guddi baan samaysanay 33 ka kooban taala inay noo baalkii mas'uuliyadda noo qaataan insha Allah Ilaahay waa noo qadaray iyaguna waxay sameysteen structure-kii iyo gudoonkii iyo gudoomiye ku-xigeen iyo afhayeenkii wixii guddi looga baahnaa qaadkoodii hawshoodiina way bilaabeen mandate-koodii iyo labada group la kulankoodiina waa u qabsoontay meel wacana hadda Ilaahay hawshu u maraysaa qolo kastana si fiican bay u soo dhaweeyeen insha Allah waana aad noogu mahadinaynaa kolay way jiraan waxyaalo badan oo been oo aan ka jirin iyo waana sheedaankii caadadiis marka taasna insha Allah waxaan uga digayaa tolka meel ay joogaanba oo labada geesba inay ka taxadaraan oo ka dhagalaadaan waxyaalaha la soo sheegayo ee loo kala keenayo wax nooc kasta ay tahay guddiga waxaan kula talinay inay war-saxaafadeed sameeyaan joogto ah oo uga waramaan ama soo gaarsiiyaan hadda meesha xaaladu marayso taasna waa sameyn doonaan insha Allah biidni kariim riixnayo 3 maalin iska soo xulanay hawshaas loo igmaday aysan ismada ku jirin marka isku doorto waa goorma ismada iyo inteeda kalena hawsha kama maqlin waxaan u nahay marjac aan ku garab joogno kuna taageerayno guddidaas inaanu garbaheeda u nahay leyskeedana aan la qabno iyadana markasta waa heegaba u nahay marka inkastoo aan guddida ku jirnin haddana marjacaan nahay wixii ugu yimaadaan loogu salaabanayo alxamdulillah hawsha aad bay noogu fiican tahay waana uga mahadinaynaa inta joogta waxaan isla si gaar ugu mahadinayaa boqor Cabdilaahi oo maanta boqornimadii iyo odaynimadii iyo boosku lahaa maanta hawshka istaagay nabadna ku baaqay hawshana maanta dhexda ugu guntaday inuu hawsha maanta nabad ka dhigo aqoon-yahanka iyo guurtida iyo culimada meesha joogtana maanta si hawsha u tabantabinayaan aad baan uga dhacsanahay uguna farxsanahay hawshaas inay nabad ka dhigaan iyagu ay na tuseen inay isku arxamayaan oo ay runtii ka xun yihiin waxa meesha ka dhacay mid kalena inay ka dhacdo ka xun kana hortaagan oo ka hordigaya labada geesba marka taasna waa runtii wax lagu farxo dadku inay qoomameeyaan khaladaadka meesha ka dhacay meel lagu soo wada jeestaan inaan ku bishaareeyo labada geesba waxaan ka aragnay qoomamayn ah inay dhibaato kale aysan naga dhicin tii horena meel ay wada taagan yihiin marka intaasna hadday taas tahayna way fududaanaysaa inta kalena idinkana waxaan ka baraynaa inaad noo soo ducaysaan hawshaas inuu Ilaahay khayr noogu dhamaystiro waan salaamaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sida aad iyo aad waan hor fadhinaa dhowr jeer baan tagnay Ceegaagna waa uu dhaxno hadda wali degaankayga hadda Ceegaag baan deganahay guddidii iyo ergooyinkii meel kasta iskaga timid hadda Ceegaag baan joognaa oo ku suganahay hor fadhina meel yar noo dhow markii loo baahdo waa u nimaadnaa haddii warbixin laga helo iyo haddii warbixin loo keenayaba degaankuna waa ma sha Allah aad u baaxad badan buu Ilaahayna siiyay oo qurux badan inaan iska daadan nimcooyinka Ilaahayna siiyay kolley hawshan dadkan u soo gurmaday meel kasta iskaga yimid waa dad iyagu isu soo diray hawsha tan ugu yimid sulx inay meesha ka abuuraan wanaag iyo nabad ka abuuraan aan waxba ku helaynin iyaga danahoodii u soo dayacay marka waxay kaliya u yimaadeen waxa weeye inay xasaanada ajar ay ka helaan taasna waa ku taageeraynaa ninkii isagu ujeeddo kale u yimid ama dan kale uga leh Ilaahay ku culaysiyo iyagana waxaan ka baryayaa inaysan
u qabsoomin laakiinse ninkii khayr wada ilaahay u fudaydiyo ninkii islaaxu loogu yimidna ilaahay u fudaydiyo وعلي عثمان مسعر دكتور مقالة أبوه ليه حروتها قبل كعين